Nin tagsiila ayaa wuxuu dhahay waxaan hadda ka hor soo qaaday maamo weyn iyo gabadheeda. Gabadha waxay ka hadlaysay ninkeeda dhibka uu ku hayo iyo inuu mararka qaar iska xanaaqayo marka ay samayso wax uusan u sheegin. Maamadii waxay ku tiri gabadheeda, sida uu yahay ninkaaga kula dhaqan. Fiiri aniga iyo aabbaha 30 sano ayaan isqabnaa, nolosheenna waa caadi, dhibka ma jiro, waan isfahanaa. Sababta ma taqaanaa? Wax walba uu yiraahdo waxaan ugu jawaabaa waa yahay xaaji, waan samaynayaa. Anigoo dareensiinaya inuu isaga i xukumo, laakiin waxaan sameeyaa waxaan anigu rabo. Ma ogtahay ragga waa doqomo, markay isxanaajiyaanba hal eray oo aad tiraahda ayay ku degayaan ama ku aamusayaan. Tagsiilihii wuxuu dhahay, islaantii way iga xanaajisay, dhiigkarna way igu riday. Anigoo isxanaajinayo, gafuurkana tuuraya ayaan fiiriyay meesha ay fadhiyeen. Islaantii markay aragtay waxay igu tiri, adiga kuma jirtid wiilkayga, qof caqli badan oo fariid ah ayaa tahay, Allaha ku dhowree. Anigoo dhoola caddaynaya ayaan sii jeestay, mise waxaan maqlay ayadoo cod hoose ku leh, ma aragtaa doqonnimadiisa, hal eray ayuu ku aamusay. Sheekada labaad, nin ayaa taleefankiisii tuug ka xaday. Markuu gurigiisii ku soo noqday, ayuu la kulmay xaaskiisii oo alaabteeda xirxiranaysa oo baxaysa. Wuxuu ku yidhi, oo xaggee ayaad u socotaa? Xaaskiisii waxay ugu jawaabtay, soo adigii text message fariin qoraaleed ii soo diray ee i furay. Waan iska tegayaa, gurigii hooyaday ayaana aadayaa. Ninkii wuu yaabay, taleefankiisii tuuggii ka xaday ayuu wacay. Tuuggii ayaa ka qabtay. Ninkii ayaa ku yidhi, war haddii aad taleefanka iga xadday, maxaad xaaskayga message ugu soo qortay ee aad iiga furtay? Tuuggii ayaa ugu jawaabay, yaaqayow xaaskaagu way i dhibtay, 30 jeer ayay i soo wacday. Caawa oo dhan halkee joogtaa? Goormaad guriga imaanaysaa? Yaad la joogtaa? Iyo taleefanka iga qaba ayay nagu waashay. Kaaga sii darane, markaad soo hoyanayso dukaanka wax iiga soo iibi, ha ka soo tegin bay leedahay. Madaxa ayay i xanuujisay. Kadib waxaan is idhi, u naxariisa ninkan oo waxaasoo dhan ma xamili karee, ka fur naagtan waalan. Sidaa ayaan kuugu dhib yareeyay. Haddaba waxaan kugula talinayaa, ha ku noqonin naagtaas. Waxaan filayaa saaxiibayaal sheekooyinka inaad ka hesheen. Labada sheeko midee adiga kaa yaabisay ama kaa qoslisay? Aragtidaada sheekada dambe haddii ay adiga ku qabsan lahayd, maxaad samayn lahayd? Sheekooyinkanna si ay asxaabta kale uga bogtaan, muuqaalka inoo sheer gareeya.